السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعن أو ناكسن دعوة ضيال كسر دواء إلى TV. برنامج كإليس TV ما أنت وحنا إذنكو هينا فيلمان تحنا عوان إذن كسر ديارنا فيلم عن كهل الإمام الكوميسي جيتو بيوقع بالسنجومات كي حسوق شعب الصومالي وقاعدين يعني. فيلمada aan qaybta koowaad waxaan ku daawan doonaa Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay madaxweynaha maamulka gumeysiga Itoobiya oo qaabilsan dhulka Soomaalida Ogaadeenaya oo ka waramaya propagandada gumeysiga Itoobiya ee ku aadan dhinaca horumarka midaas oo uu sheegay inay tahay mid been ah oo aan waxba ka jirin waxaad xasaysaa xusbay kugu ridaano daawadayaal filimaanta aan ka helay gumeysiga Itoobiya waxay isugu jiraan filimaan aan ku soo bandhigi doono qurba joogta Soomaaliyeed ee tigidhada dawladda Itoobiya ka bixiso si ay u tagaan jigjiga iyo sababaha ka dambeeya oo Cabdi Ilay ka warami doono sidoo kale waxaan idin soo bandhigi doonaa filimaan kale oo aan kaga hadli doono xisbiga Ethiopian Somali Democratic Party iyo burburinta uu ku hayo shacabka Soomaalida Ogaadeenaya oo ay ka hadli doonaan madax kamid ah kilka shanaad xasaysaa xusbay kugu ridaano hormar baan gaadhay maxay baan gaadhay waa soo gelinay report aan jirin oo been ah intira haqbiya usxabalka yaga xabashida madow waa xisaabku maqan filimaantan ayaa ah kuwa uu noo soo gudbiyay Cabdullaahi Xuseen iyo waliba xog dheeraad ah oo Ilays idin soo diyaarisay qaybtan koowaad ee filimadan waxaan ku soo qaadan doonaa horumarka ay u adeegayaasha gumeysiga Itoobiya sheegayaan in uu ka curtay dhulka Soomaalida Ogaadeenaya horumarkaas muxuu yahay sidaan ka warhayno dhulka Soomaalida Ogaadeenaya ee Itoobiya gumeysato waxa uu kamid yahay 9 kilil iyo 3 magaalo maamul ee ka jira Itoobiya waxayna kala yihiin kilka Tigreega kilka Amxaarada Oromada Anfarta Benishanguulka Gambeelada gobolada koonfurta iyo dhulka Ogaadeenaya sidoo kale 3 magaalo ismaamul oo kala ah Addis Ababa Dirdaba iyo Harar dhulka Ogaadeenaya goboladaas aan ka soo sheekeynay marka la barbar dhigo waa meesha ugu dib dhacsan haday noqoto dhanka caafimaadka waxbarashada iyo guud ahaanba nolosha aasaasiga ah nolosha bini'aadamka Itoobiya waxa ay kamid tahay 10 wadan ee caalamka ugu saboolsan Ogaadeenayana 9 kilil ee ka jira Itoobiya ayay ugu sii saboolsan tahay taas waxay cadeynaysaa in wax horumar uusan ka jirin Ogaadeenaya Itoobiyaba gumeysiga Itoobiya waxa uu aqoonsan yahay dhulka Soomaalida Ogaadeenaya meesha ugu dib dhacsan inay tahay si kastaba ha ahaatee waxa waayadan dambe soo batay barnaamijyo uu hogaaminayo Cabdi Ilay oo bulshada Soomaaliyeed lagu majara habaabinayo iyada oo loo sheegay in dhulka Soomaalida Ogaadeenaya ka jiro horumar aad u weyn dadkuna ay ku nool yihiin fooqaq dhaadheer oo casri ah ololahan uu gumeysiga bilaabay oo afka baalkiisa dhaafsaneen waxa laga sheegaa shirar uu Cabdi Ilay u qabtay dad badankooda ka soo jeedaan Jamhuuriyadda Soomaaliya haddaba horumarkaas maxaa ka jira uu Cabdi Ilay sheegay waxaan halkan ku daawan doonaa Cabdi Ilay oo ka waramaya horumarka uu sheego iyo isaga oo beeninaya haddaba filimkan ayaa ah mid uu ku beeninaya Cabdi Ilay horumarka uu sheego filimkan ayaa si qarsoon looga qaaday Cabdi Ilay mar uu la hadlayay dad uu ku soo shiriyay magaalada Jigjiga waxa uu yiri sidaan talaaqo 10 milyan oo xoolo talaaqo xafiisan kuma taqaanay wasiirka beeruhu kuma dhaaraka 10 milyan oo xoolo talaaqo marunba 10 milyan baa xoolo talaaqo ilaahay baa garan in maxaa qora 10 milyan talaaqo Cabdi Ilay waxa uu sheegayaa inay 10 milyan oo xoolaha talaaleen marunba ilaahay unba og ayuu leeyahay beentaas aan sheegayno xoolaha ku nool dhulka Ogaadeenaya waxa gumeysiga Itoobiya ku qiyaasaan in ka badan 20 milyan oo xoolaha marka suurtagal ma tahay in 10 milyan oo xoolaha maamulka kilka shanaad talaali karo Cabdi Ilay waxa uu filimkan ku qiray in waxa ay sheegaan oo dhan been tahay xaqiiqna ay ahayn horumarka ay hore u sheegeen iyo midka ay hadda sheegayaan iyo waxa ay sheegi doonaan waa been ayuu yiri Cabdi Ilay hormar baan gaadhay
محبا جاني واحد السوري فوقريني ريبورت عن شيرين أو بينا كان هذا عوضنا ما تقنا حقائق دي سويها لما هو كوي ورا ما تقالوه bal sidoo kale aan eegno filmaan hore oo Cabdi Ilay kaga hadlayo horumarka beenta ah oo dadweynaha u sheegaan waxaana deegaankeena ka jira 2,000 oo ceel qaameed sidoo kale waxaa jira 2 mashruuc oo biyo-gelinta filto hargeyla charity oo loo yaqaan mega project iyo guud ahaanba haddaan eegno dhanka biyaha waxaan loo kala qaadayaa 3 ka faa'iideysiga biyaha wabiyada 4 webi ayaa leenahay waxaana ka faa'iideystay dad Soomaaliyeedku iyo 43 qoys oo la dejiyay sanadkan bal markana la daawada isaga oo beeninaya hay'adaha dawliga ah ee ka jira kiilka sida wasaaradda beeraha isaga oo sheegay in riboodyo been ah ay qoraan 2 milyan oo xoolo talaabay حفيسات كما تقرناي وزير كوبيرو كما دارك ما 2 مليون بحال طلال الهي باكر ان محاكره 2 مليون طلال حرمت باغادي maxay baa gaadhay waa soo foogelinay report aan jirin oo been ah kan hadda aan wadnana ma taqaanaa xaqaaqidiisu yahay lama hubo kuwii hore ma taqaanaa shalay saas bay maanta waa sidii dhinaca kala daawadayaal waxaa jira qurba joog ay gumaysiga Itoobiya u gooyeen tigidhawan way ah oo lagu geeyay magaalada Jigjiga qurba joogtan oo ah dad ku nool wadamada horumaray sida Europe iyo USA ayaa lagu soo wareejiyay magaalada Jigjiga haddaba daawadayaal Jigjiga waxa ay ka mid tahay magaalooyinka qadiimiga ah ee dhismaheedu la bilaabay waqtigii Xeele Salaase ka hor waxayna la factahay magaalooyin badan oo ka jira dhulka Itoobiya Jigjiga waa magaalada ugu dib dhacsan gobolada kale ee Itoobiya ka jira marka loo eego haddii aan isbarbar dhigno magaalooyinka waaweyn ee ka jira Itoobiya Jigjiga waxa ay noqonaysaa magaalada ugu liidata dhanka bilicda iyo horumarka muuqda ee guryaha sidoo kale dhanka nolosha waa magaalada ugu hooseysa Jigjiga waxa ku nool tiro dad ahaan 148,000 oo qof midaas oo ka dhigaysa xagga tirada dad badnida magaalada tobnaad ee magaalooyinka ku yaala Itoobiya haddaba magaaladan waxaa ka horumarsan Addis Ababa, Diridhaba, Maqale, Adama, Gondar, Awasa, Bahir Dar, Chima, Desse, Debrecen, Shashamane, Harar, Sodo, Arbaminch, Hoseyna, Naqamte, Asela, Dila, Debre Birhan iyo Nazareed magaalo kasta oo ku taala Itoobiya ay ku nool yihiin in ka badan 70,000 oo qof ayaa ka horumarsan Jigjiga dhinac kastaba haddaba su'aasha la isweydiinaya waxa weeyaan qurba joogta Soomaaliyeed ee Jigjiga la geeyay horumarka la soo tusi karo muxuu yahay horumarka Itoobiya ka wada gudaha ogaadeenaya muxuu yahay waxa caalamku aqoonsan yahay in dhulka Soomaalida ogaadeenaya in ka badan 2 milyan ay sanad kasta u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo cunno dadkaasna ay u baaba'aan macaluul haddaba socdaalkii Cabdi Ilay uu Soomaalida ugu waramay in dhulka ogaadeenaya horumar ka jiro waxa beeniyay isla isagii uun filmadan sirta ah wuxuu ku sheegay in wax horumar ah uusan jirin Cabdi Ilay wuxuu yiri wixii aan hore u sheegaynay iyo waxa aan hadda wadno waa been shalayna saas bay ahayd maantana waa sidii uun horumar baa gaadhay maxay baa gaadhay waa soo foogelinay report aan jirin oo been ah kan hadda aan wadnana ma taqaanaa xaqaaqidiisu yahay lama hubo kuwii hore ma taqaanaa shalay saas bay maanta waa sidii daawadayaal waxa halka inoogu eg barnaamijkii beenta Cabdi Ilay oo soo afjarantay waxaan idin ballan qaadaynaa muuqaalo kale oo badan oo la xiriira propagandada gumaysiga Itoobiya muuqaaladaas oo aan filayno in wax badan banaanka u soo saari doonaan waa anigoo ah Shukri Maxamed Xasan iyo bahda Ilay soo idinka tagayna sida iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh